حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاة المسلمين. من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالكين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالكين. قسما لهم مجد غر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كلمة لا إعلامية قيب كمذا وحا شلك بحذي كولانكي برمنغهام oo qodobo dhowra oo run ahaantii arar u noqon karta mowduuca laga dhawaajiyey aanu rabno haddii ilaahayna waafajiyo inaanu isla daboolno. marka la leeyahay ummad baa la badbaadinayaa, bulsho socota oo jiritaankeeda uu halis uu ku jiro, in isusushannadeeda burbur ay ku yimideen, dhammaan afraadda iyo canaasirta ka kooban bulshadaana ay khatar ay u tahay inayba taariikhda ka barabaxdo. marka la leeyahay la badbaadiyo, waxaana shaki ku jirin marka laga soo tago tawfiiqullaahi jalla wacala, tawfiiqullaahi wa qudratihi marka laga soo tago inay u baahan tahay canaasir kala duwan oo run ahaantii laga heli karo un keliya da'yarta. canaasirtaa marka ay urursanto la helo iyada oo dhan meelna ku qoofalan, suurtagal inay tahay bulshada marka in loo gurmado wax lala qabto. qodobkii aanu soo dultaagnay wuxuu ku salaysnaa mawaahibta iyo taaqaadka ama qualificationka allah subxaanaه wa tacaala uu siiyey da'yarta, gaar ahaan kuwooda meeshan ku barbaaray 20kii sane ee Soomaali qax ahayd, in ay qayb ka tahay cawaamisha lagu badbaadin kara bulshada biidin illaahi subxaanaه wa tacaala. oo nin walbaba inta uu soo bartay iyo inta allah subxaanaه wa tacaala garaadkiisa ula ekaysiiyey iyo inta aqoontiisa diineed iyo tan maadiguba ay tahay, labadooda inay qayb weyn ay ka geysan karaan, door weynna ay ka gudan karaan sidii bulshadan loo gacan qaban lahaa. waxaanu ka hadlaynaa kuwa meeshana la jooga iyo kuwa naga maqan. kuwa meeshana la jooga u baahan majaalaad fara badan oo noloshooda ku xooman in wax badan marka laga geysto. idan waxbarashadu waxa ay noqotay tuulka ugu horeeya wax lagu qaban kara biidin illaahi subxaanaه wa tacaala. caamilka labaad baan u gudbayaa biidin illaahi subxaanaه wa tacaala. arrinka labaad wuxuu yahay التفكير السليم، فكر فيو وأن قلوع عنه كجرين إذن وحو نقون كرا مد بإذن الله سبحانه وتعالى بلشهدا وحو قيسته أما وحو قبته. ولذلك وحي إليه
markii dib loogu laabtay tirakoob la sameeyey ixsaa'iyaad la sameeyey ayaa waxaa soo baxday aadanaha marka dib loogu laabto inta fakarta sida loogu talagalo rabbulcaalamiin maankan uu u siiyey u adeegsada boqolkiiba 2 wey inta kala sooma waxaa laga yaabaa fakarkooda iyo tafkiirkooda isagoo mubacthara marba meel uu jeedo barnaamijkan baa ku furan kan baa ku furan kan baa ku furan laga yaabo isagoo fakarku uu noqdo mid isagu iska heebaabayaan fadhiyin inuu meesha arku sida uu noqdo laakiin inta fakartay waa 2 waxay kala leeyihiin meesha kaliya ee qofka aadanaha uu ka noolaan karo waxna uu ku soo kordhin karo bulshadii waa marka uu maanka u adeegsado maankan uu yahay mid marka isagu fayow waxa laga yaabaa haddii nin meeshan fadhiya aan isugu tagno oo aanu xirxirno oo lugaha aanu ka xirno oo la garbaduubo oo meel kastoo jirkiisa ka mida la xirxiro xitaa cararka xitaa meesha keliya ee qofka kan uu ka dhaqdhaqaaqi karo ama uu ka fakarayo waa maskaxdii sideed u baxsataa xargahan sideed kaga bixi lahayd dabarka lagugu xiray sideed ugaga boodi lahayd ninkan ku hortaagan magaciisa bal sii tilmaanso meesha shaqaynaysa waa maskaxda waana watanay leeyihiin marka dib lagu laabto waxyaabo fara badan oo bini aadamka allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey waxa ugu muhiimsan fakarka saa darteed ba aayaadka quraaniga iyo axaadiida nebiga oo dhanba marka la soo dhiraandhiriyo aayada la aqriyo gabagabadii iyo gunaanadka aayadda waxay xambaarsan tahay inna fii dalika la aayaat liqowmin yatafakkaruun waxaa la soo sheegay ee la rabay inay duruus ay noqdaan aayaadkaa la bidhaamiyoo la tilmaamay waxaa wax kala bixi kara uun keliya dadka iyagu indheergaratada ah maankooda uu shaqeeyo maskaxdoodana ay fadhido waa meesha aayaddu ay leedahay afalaa tubsiruun waa tani aayaddu leedahay afalaa tacqiluun meesha ugu horeeyo allah subxaanahu wa tacaala uu khitaabka u wajahayo waa caqliga idan caqliga markuu fayoobaado ama waa uu fadhiyo waa marka keliya bulshada wax marka la tegi karo biidni illahi subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay ibnu caqiil alxambali waxa ay soo martay buu yidhi 80 sano 80 sano buu wuxuu yidhi nafsadeeda waxaan u diiday buu yidhi inaan meelun iska fariiso aan waxba aanan qabanayn haddii ay soo marto buu yidhi waqti xubnahayga ay daalaan wax aan qaban waayo dhaqdhaqaaqi waayo wixii oo dhan aan si ugaga xandhimo meesha keliya oo ilaahay ii barakeeyo waa maskaxdan ageyska jira buu yidhi iyadaana marka faa'iido igu jirta waana macnaha marka la tilmaamayo waxay leeyihiin nimanka yuhuudda ah waxaa takhtiid la sameeyey 1897 bimacnaa waxaa takhtiidku kayaa loo sameeyey existence ay yeelato muddo markii ay ka soo wareegtay 50 sanadooda oo la gaaray 1947 khitadii la dejiyey iyo platformkii fakarku uu ka dhaqaaqay sidiisuu marka u fulay idan waxaan leenahay haddii bulshadan meesha joogta da'yarteeda iyo dadkeeda allah subxaanahu wa tacaala aqoonta uu siiyey hadday u fakaraan ummaddan barakacdoo bastay oo belayadun ay markaa ku dul habsatay hadday u fakaraan biidni illahi subxaanahu wa tacaala tafkiirkaa saliimka wuxuu keenayaa biidni illah waana macnaha marka loo baahan yahay idan tafkiirkaa saliimka ah waxaa hor taagnaan kara dhowr cawaamil ama factories ka dhigi kara ama qofka dib u dhigi kara waxaa ka mid a qofkii inuu yidhaahdo dadku waddadan bay mari jireen waa iska marayaan blind imitationka wuxuu keenayaa in haddaad tidhaahdeed horay baa waddadan la mari jiray waa iska maraya qofkii maskaxiisa aanu ka shaqaysiin iyadoona waxay tahay waxyaabaha qofka xanibay waxaan ugu tegi doonaa marka culuwulhima markaa la gaaro saa darteed waxaa la sheegaa khulafaa alcabbaasiyiin nin ka mida ayaa wuxuu wax ka sheegay nimankii umawiyiinta ah wuxuu yidhi uu la hadla wuxuu yidhi ninka cuثmaan ibni cafaan khalad buu galay buu yidhi oo khaladkuu galay muxuu yahay wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam marka uu khudbadayn jiray mimbarka meel buu ka istaagi jiray darajka ugu sarreeya kadib markii nebiga sal alla alay wasalam uu geeriyooday ayaa waxaa yimid buu yidhi cumar bnu khataab hoos buu ugaga degay buu yidhi hal duraj buu hoos u dhaqaaqay kadib markii uu geeriyoodayba waxaa yimid cumar bn khataab abubakar baa yimid hoos buu u degay kadibna cumar bn khataab baa yimid haddana hoos buu u degay buu yidhi cuثmaan ibni cafaan baa yimid buu yidhi dib buu u laabtay buu yidhi ninkii hadlayey markuu hadalkaa u dhammeeyey kadib nin culammada ka mida hadalkiisa maqlo wuxuu yidhi yaa haada sida aad u sheegaysa arrinka hadduu u dhici lahaa oo cuثmaan ibni cafaan hoos uu sii degi lahaa kii ka dambeeyana hoos uu sii degi lahaa khudbadan maanta aad aqrinaysid ceel hoostii baad ka aqrin lahayd buu yidhi bimacnaa waa maxay
maanku maaha in sidaa la sameyn jiro waan sameynaya illa allahumma nusus in adiga ku qaydo ku dabarta mooyaane oo aadan dhaafi karin oo ka talaabi karin waa mar meesheeda marka wuxuu yiri maankaaga waa inuu shaqeeyo wuxuu yiri ahad al-mufakkiriin 20 sano ka hor sida aan u fakari haddaan wali u fakarayo wali meeshii hadii ii taagan tahay maankayga waxba marka kasi ka ahwiin waa qodobka ugu horeeya aan u baahana marka in aan islaamaal dhigin arrinka labaad wuxuu yahay ee ummad lagu badbaadin kara siiba bulshadana Soomaaliya lagu badbaadin karo ninka da'yarta inuu noqdo nin higsigiisu aad u sareeyo waxyaabaha higsiga hoos uga dhigana waxa kamid ah system kan habaca oo qofku uu iska rabo kaliya inuu maskaxdii aanu ka shaqaysiin markuu higsigaaga uu sareeyo oo asleeda ummadan waxba loo qaban karaa shay baa loo qaban karaa ama cilmigii ama noocan majaal aad kaga begnaatid waxay ku xiran tahay iyadoo qofka marka himadii marka la yimaado himadu marka waxay u baahan tahay waxa lagu magacaabo fakar aad u qurux badan waana meeshii ay culimadu marka ay tilmaamayeen waxana kamid ah mesela qofka inuu cilmi lahaado mesela islaam Soomaali dhignaya arrinka labaad wuxuu yahay himada waxay ku iman kartaa qofka inuu noqdo qof xiriirka dadka uu la leeyahay ay noqdaan dad iyaguna himadooda ay saraysigooda u sareeyo bimaana ninka dhalinyarada ah dadka uu ku dayanayo iyo dadka uu ku faraq xiranayo iyo kuwa uu saanta uu la qaaday iyo kuwa fagaarayaasha uu la fariisanayo iyo kuwa hadallada ay isdhaafsanayaan intaba inay noqdaan dad marka himadooda marka ay sareyso walaalka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida xadiiskii bukhari masjidka markuu ka istaagay kadib wuxuu ka hadlay fadliga ay leedahay janaaza in la raaco fadliga ay leedahay yatiim in wax loo toro fadliga ay leedahay in marka qof xanuunsan la soo boqdo intuu markuu hadlay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yaa maanta qof xanuunsan soo boqdo Abu Bakr baa gacanta taagay ana ya rasuulallah hadana wuxuu yiri maanta yaa janaaza raaci ana ya rasuulallah Abu Bakr baa taagan maanta yaa qof miskiin qudi ana ya rasuulallah hadana arrinka loo sheegay ana ya rasuulallah Abu Bakr waxa dareemaysaa مواقفتي للشيء أولاً أنا ولا سو تجنا بمعنى وح وتاجن هاي همدي سعد بيوصل رئيسا قفك مؤمن كأنا وحيابا لو جب باهي وحكم إذا هدي كلاش كو ديجانه هدي جامعة ديجانه هدو شقة قبانه هدو مال جوجو ما شكلي قفك مؤمن كأوكان عكرة والدرجة توصل رئيسا بمعنى ماها وتنويرنيك شاعرك في شرف مروم وحكوف كريسة ده شرفتها فلا تقنع بما دون النجوم وحد دقاها كصوصك يا كو قنع قفك ماشي قصر رسينه كو قنعو سادته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليه هداد إلهي جنة ويديسان إنسان ويديس جنة الفردوس ويديسته إلهي مركز جنة ويديسان إنسان وحاد ويديستان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جنة الفردوس ويديسته بمعنى ومحي هي أعلى الجنان إذا قصر رسينه إن التراهيد مع جنوين كان دوم برا ماشي قصر رسوه إذا وحلنا مركز أمسي لو بدبادياي هيكس سروا إنه يجرو قفك إنه أمبيشس نقضه وكفكر أمضا هبين إيمان تفكير كيسنا مركا وراد مركا يا شبيذ الله سبحانه وتعالى أريك اللي بعد وحوي هاي إن وقفك وهالما فكر كأنه مصر ما ينكره لو ما نبهنا إن هذاك يدردر لو ما بهنا لكن مصر ما ينكر فكر كأنه مال إسكت نقول بمعنى وحي ليه لو شيء impossible في هذه الحياة عن صورة قلها ومضوا استحالة كونية أي جرته استحالة شرعية استحالة كونية وحيابها عن صورة قال كان واحد كمذا إن ترى هذا قرح لي كسر بحي سبري بإنتان سوق هذا واحد كسر صار قلبك محير الله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب تام معقول ما استحالة شرعية ومحي الله سبحانه وتعالى وحكاله وحيابها محارم بكاله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم آيات أصلا وحي كهذا شام حارم إن قفك هويدي أنو قرسان كرين إن أنت أولي أنو قرسان كرين هبرتي أنو قرسان كرين إيددي أنو قرسان كرين suurtagal maaha marka naskii sida isu taagay ee keenay waxaan xaraam yiri inaad maanta badashid oo tiraad wax ma la sameyn karaa labada arimood wixii ka soo haray Soomaa waxa la sameyn karin marka malaha waa meesha uu leeyahay ibn al-qayyim al-jawziyya qofka haduu ku fakaro isiraad buurtan waad xambaari kartaa waad qaadi kartaa dusha saaran kartaa haduu yiraahdo inay suurtagal tahay baan aaminsanahay buu leeyahay bimaana waxaan leenahay ummad baa la badbaadinaya marka la leeyahay qofkan ambitious uu yiraahdo in aan إنه هبع يماذا معها إن التراثيم معه معقول معه ومدن لما بدبادين كرو ومدن صومالية صومها سيستم كابي ولا شيء
haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu ka dhigay soo maaha macquul maaha bulshadan illiteracy-ga uu ku batay waxba looma qaban karo markaa iska dhaadhicisid waa marka keliya ummaddu meesha aanay ka dhaqaaqayn walidaalika tajruba nimankan malaysiyaanka ah tajruba waxay leeyihiin ninka malaysiyaanka markaad tiraahdo hawshan qabo waxaa caado u ah inuu ku yidhahdo ta'buliya ma qaban karo inuu yidhahdo yacni ma kari karo kelmaddaa waa ku badnayd markii maxaadiir maxamed waqtigiisii la soo gaaray la sheegay inuu wax weyn uu ka geystay waddanka iyo horumarintiisu ka geystay wuxuu halkii dhig ugaga dhigay shicaar walboo meel lagu qoro dadka markay meel isugu yimaadaan muntadayaadka marka la raba in la gaardiyo kelimadda maleeshiya bulay oo qofkii tagay uu arki karo waan kari karaa bimacnaa waxaan waa samayn karaa bimacnaa wuxuu rabaa inuu dadka xitaa halkudigooda wax bedelo ilaan qofka markuu yidhahdo wax waa samayn kartaa wuxuuna aanay ahayn qardajeex iyo ka tallaabid laga tallaabayo sohdimo rabbi markaa isagu u xariiqday waa suurtagal waa la samayn karaa idan albaabka in la garaaco lana furo bulshana wax loo qabtay dadka qabanayana ay noqdaan dad da'yara oo dadka meeshan ku barbaara 20 sano ay meesha inagu aanu joogno dubaha nagu dhacay waa suurtagal biidin ilaahi subxaanahu wa tacaala arrin kale wuxuu yahay ee loo baahan yahay qofka marka aad arkaysaan waa inuusan bii'adu markay faashil ay tahay bii'adeen hal mushkila bay leedahay environmentiga deegaanka Soomaalida ama dabcigan waxa kamida waxay nagu yar creativity ayaa nagu yar ama ibdaaciyada ninka Soomaaliga ma garto waa sida aan inagoo dhan u badannahay ma garto wadadan haddii ay ka xiranta wada cusub furo business marka la joogo ma garta ninkan hadduu maqaayad furta adigu meel kale ka furo maqaayad kale ku kala furaya kan hadduu Indonesia aado macawis uu keena ma garto warshaati waa la keena macawis uu keenay ma garto hawshan laynka baa lagu tahriibo walaalka Soomaalida laynka soo lagu soo tahriibo qarxa umada kale way soo socdaan oo kaliya kiibu aada ilaa uu ka xirmo idan case-ka creativity-ga inuu qofka maskaxiisu ka shaqeeyo waxa uu ku fakarayna ay noqoto ibdaaciyo war wadadan waa la maray nin baa hore u jeexday case-kan wuu xiran yahay adigana wada kala furo waxay ka mid tahay waxyaabaha looga baahan yahay qofka muslimka inuu la yimaado arrin kale wuxuu yahay culul himma qofka ku caawin kara waxa kamid ah mas'alatu al-itqan wal-ihsan laba shay buu Allah subhanahu wa ta'ala ka hadlay marka wax la qabanayo wa ahsinu marka aad wax gowracaysaan hagaajiya marka aad hawl qabanaysaan hagaajiya ihsaan itqaan baa looga baahan hawsha la qabanayo inay sugan tahay mutqan ay noqdo perfection way inta diintu marka inoogu yartay laakiin hawl iyada haafa oo kala dhiman oo kala kiiba 20 baan qabtay boqolkiiba 30 bay dhaaftay 70 baan qabtay boqolkiiba ma buuxsamin watan Allah subhanahu wa ta'ala uu diiday watan xadiidka uu leeyahay in Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina ilaahi wuxuu jecel yahay midkiin markuu hawl uu qabanayo inuu sideeda uu sugo watan ayadu ay leedahay Allah subhanahu wa ta'ala fi qur'aan al-karim waxay leeyihiin culimada xitaa itqaanka wuxuu soo galayaa aayaadka quraaniga marka la aqrinayo inuu qofka aanu dul marin uu kaliya mururan kiraaman uu isdul taago walaalka imaam Shirazi wuxuu aqrinaya qawluhu jalla wa ala khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an ilaahi wuxuu idin abuuray wax kasta oo ardadan dhulkeeda ahaado dusheeda ahaado ama ka soo baxa lakum taabu isdul taaga waa xaraf laam iyo kum ka kooban imaam Shirazi markuu dul taaga wuxuu kala soo baxay fiqi waxa la wixii ardadan ku hoos aasan ee macdan ee batrool mas'aladan ay leeyihiin ay ku magacaabaan economics-ka ay leeyihiin waxa iskale ajyaasha soo socota ilaahay haduu lakum uu yiri ma aha wax alla wixii macaadina ilaahay uu dhex dhigay wax alla wixii batrool uu dhex dhigay inuu wadan inaan isku fuuqsano ma ahana ummad kaleena sugaysa bimaana waxaan rabnaa xitaa marka aayada la aqrinayo ama marka xadiidka la aqrinayo fakarku inuu noqdo sidee waxaan looga mira dhalaa sidee bimaana looga caanamaalaa sidee natiijo looga gaaro waa inay noqoto oo salaadeena waa inay perfection noqoto oo qofka soonkiisa waa inuu perfection noqdo waa in qofka zakadiisu ay sida ay noqoto wadooyinka markuu qofka uu soo maro uu isu soo sugo min alifiha ila yaha waa marka hawshu biidina subhanahu wa ta'ala la iman karo perfection ka waxa kamida qofka inuu san degdegin oo aanu ku degdegin natiijada marka uu rabo waqti bay qaadanaysaa wuxuu leeyahay ninkan saxafiga Haykal waxaan raadiyay buuri ninka Einstein lagu magacaabo isagu lahaa fakarka kan scientific theory-ga la xiriirta relativity-ga la xiriirta wuxuu yiri maalin baan ballansaday buu yiri meel baan ugu tagay markaas waxaan u baahanahay in aan kulan saxafiga kula sameeyo oo aan ku weydiiyo fikradan relativity-ga ku salaysan scientific-ga sida aad ku gaartay inaan ogaado
markaasuu wuxuu yidhi nin yar baa tahay oo da' yar way kugu adagtahay inaad fahamto wuxuu yidhi anigu uma baahni inaan fakarka aan raadiyo maalan scientific theory uma socdo inaan fahmo uma fahmi karo scientist ma ihi qof scientist ma ihi laakiin waxaan u baahan habkaad ku gaartay wuxuu yidhi 7 sano igu qaadatay inaan ka fakaro baxthi galo 7 sanana raggii aan kula niqaasho 7 sanana cardigeedii bandhigeedii aan galo waxay ugu qaadatay buu yidhi 21 sano wuxuu yidhi xitaa markuu i waraysanayo ama aan waraysanayo wuxuu i siiyey buu yidhi 15 daqiiqadood oo beerta aan sidaa ugu wareegayno wuxuu yidhi 15 sano waxay qaadatay 21 sano qaadatay idan bimacnaa waxaa loola jeedaa qofka kan waana fikir maanta scientifically widely spread oo qofka uu isticmaalo oo meel kasta markaa ku qoran waxa uu ku gaaray 21 sano fikir marka la keenayo ummadan marka loo fakarayo waa inaysan noqon bayna cashiyada iyo duxaa hadda waxa laga yaabaa haddii organization ummadda wax u qabta laga fakarayo ama tacliinta hala wuxuuna lagu daro marka la leeyahay in hal meeting intaan yeelano meeting kasto inaga aan yeelano Soomaali haddaan nahana 20 daqiiqo inaga isjiidjiidayna 20 ku xigeen mid nin kale hawshiisu ku mashquulay suu u radin laha 20 kale inagoo daalan baa lagu kala tagayaa meesha idan waqti bay u baahantay waxa loo baahanyaa marka على الأقل 4 saac 5 saac waqti in marka la siiyo taana runtii waxa sameyn kara nin daalaya ama noocan ma soo daalay ama maskaxdu ay daashay ma qaban kara waxa qaban kara nin ma aragtay da'yarta meeshan fadhida oo kala ah ee Allah subhanahu wa ta'ala maskaxda iimaanka uu siiyay taamkii energy-ga isugu daray kuwa baa qaban kara perfection marka la helo ummadda marka badbaada iimaan karta biidin Allah subhanahu wa ta'ala marka laga hadlay himada sare waxay u baahan tahay qofka waa in ay jirto quwwa daafi'a daakhiliya waa in uu ku saaray mishiin kugu bixin kara nin Chinese ayaa wuxuu u yeeray ninkan waa nin Chinese oo da'a nin dhalinyaro oo ku fakaraya inuu wuxuu yiri ambitious baan ahay waxaan u baahanahay waxyaabo fara badan dreams fara badan baan noloshan leeyahay buu yiri inaan taxqiijaan u baahanahay wuxuu yiri kaale horta intaadan hawshaada guda galin waa ku baahanahay kaale buu kadib waal buu biyo ku soo shubay waalkan biyaha bal indhaha la raacbiyay markuu saa ugu foorarsaday buu madaxa qabtay markaasuu aad intuu u muquuniyay uu hoos madaxa ugu celiyay wiilkan wuxuu isku dayaa marka inuu caabiyo oo madaxa la soo kaco uu ku celiyaa inuu caabiyo madaxa la soo kaco aakhirkii uu sii daayay wuxuu yiri waxaan ku weydiiyay buu inta aan saa ku muquuninayo isku dayay inaan biyaha marka madaxaaga geliyo xarakaadka aan sameeyay maxay ahaayeen wuxuu yiri xarakaadkan sameeyay wuxuu ahaa inaan celiyo caabiyo aan nolol baan raadinay wuxuu yiri waxa aad raadinaysid haddaadan u raadin sida nolosha aad u raadinaysid sida nolosha iyo hawada hadda ka maqnayd exhale-ka inhale-ka hadda aad raadinaysid haddaadan u raadin danta aad leedahay ma gaari kartid idan waxa leedahay ninka da'yarta ah haddii uu rabo iyo gabadha muslimadda iyadoo da'yarta haddii ay rabto in bulsho wax loo qabto haddii ay rabaan in bulsho wax loo qabto waxa loo baahayaa marka in shaygii la raadiyo iyadoo lagu raadinayo bihadihi tariiqa bihada shakl sida qofka nolosha in yar markii bacyar wajiga laga saaro oo qofku markuu nooca ma uu habqado hawadu ay ku xiranto sida uu rafanayo haddaan wixii loo raadin hawshii marka laga dabatay karo waana macnaha marka loo baahan waana hadalkii Socrates oo ah macna sidaas oo kale marka tilmaamay haddaad dib ugu laabataan dad fara badan oo maanta magacyo waaweyn ku leh fil caalam abaduu noqon lahaa ninka Edison ee kahrabada looga dambeeyay hadduu noqon lahaa ninkan ma aragtay Ford iska leh intuba waxay leeyihiin waxaana soo maray inta aan noolnahay waxaana soo maray intaasoo fashil fi xayaatina maalinba albaab baanu taagnay maalinba maadaanu ku dhacaynay laakiin intuba gegsi adkaysi fara badan markaan muujinay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyay wixii dhan ka baxnay idan mawduuca markuu ninka Soomaaliga iska dhaadhiciyo da'yarta waxaan waad qaban kartaa markaas ka dhaadhiciyo laakiin aanu raacin wadadii hore shalay aabba meeshan ku keenay waa lagu la soo baxsado meeshan baa lagu keenay iyadoo ujeedadu ay tahay hebel hal la badbaadiyo tacliim buu aabba ku fakarayay waxa lagu fakarayay nolol fiican baa lagu fakarayay haddii meeshii systemkii aabba uu maray haddaad weli ku taaganta ilaa isagu illiteracy uu ka cabanayo inuusan wax qori karin aqriyi karin weli aad ku taaganta cayrtii uu shalay u qaadanay weli aad ku taagantahay weli idan marka waxaan leenahay xadaaradii loo baahnaa ama bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd oo marka maanta la yiraahdo hal la qaanaday bulshadaha الله سبحانه وتعالى كون كان ودول أهيسي ماشى أقول لي إذا أنت أجنّا إذا وضدي مرنا بلان إيميتيشن كان ده أنت المامي نوي إذا نبكي إذا لا ذهب جبر في التاريخ مركز لسويحي جنايو مجعودي إليزابيث وحلا الشيعة وحاد على إننا يكون مجعبان خوان كان وحوا أها بقر كي قشتالة صاد جران كرتان قشتالة جعنتي جشي أول قبصدي جبر ده إيه ده مرض أحرناي dharka ay ka dhiganaysa waxay ballan ku qaaday muddo 30 sano ah taariikhda hadaad meel ka sagelisan fi taariikh ay tiraahdaan qamiis ama qamiis
هتكون مقعودان الأزبال العتيق هذا تكون مقعودان أما إليزابيث maradeedii catiiqa ahayd oo qadiimka classica ahayd markaad meel gelisaan taariikhdooda helaysaan ayaa waxa ay ballan qaada 30 sano inay marada ay xiran tahay aanay dhigin ilaa qashtaalana dib ugu soo laabato ilaa qarnaadana dib ugu soo laabato labada marka ay gacanta noo soo gasho ayaan marada bedelaya bay tiri 30 sano hal maradeedii hoos ay ka xirneed aanay bedelin bimaana qofka marka uu yeesho higsi sareeya markuu yeesho yiraahdo ummadan badbaaday u baahanta dhibtan in haysata inaan ka kacnaan u baahanna dubaha nagu dhacay inuusan sii socon baan u baahanna ummadan qaxayso kacaysa waxaan u baahana in la soo celiyo qofka markuu ku fakaro dadka takhtiitin ee plankan iska leh ay yihiin dad yara oo sidan oo kale markay yihiin hawsha wala gaari kara biidin ilaahi subhanahu wa ta'ala Tariq bin Ziyad marka uu yimid ayaa waxa la hordhiga laba shay waxa leeyahay ninka wuxuu ahaa nin mujaahida faatix ah furanay meel kala duwan waana la ogyahay taariikhda markii dib lagu laaqiyay islamic conquest box uu ku leeyahay wala weydiyo kadib waxa la soo ninka hal mashquuliyo kadib waxa loo keenay khamro iyo gabar aad u qurux badan labadaas ugu mashquul wuxuu amma al-khamr falaysu bihajatin ilayha wa baahni maxaa yeelay maankay doorisa anna waxa la abuuray maanka inaan ka shaqaysiyo gabadhan Soomaa laba mid un bay noqonaysaa biir ama inaan ka mashquulo oo iyada aan dulmiyo ama inaan ku mashquulo oo missionka aan u socdo inaan kaga mashquulo oo jihaadkan inaan meel furto kadib labada xagga iska mariyay idan ninka dhalinyarada markuu yiraahdo anigu meeshan maxaan u imid maxaa meeshan la ii keenay joogitaankayga muxuu yahay joogitaankayga waa inaan ummadii wax tara waa inaan ummadda boos aan taaganahay thaqran ummadda u taaganahay bulsho waxaan ka dhashay u baahan in la gacan qabto markuu yiraahdo isna wuxuu istaraya dadna wuxuu taraya laakiin marka hadii laga dhacay barnaamijka 18 maadan gaarin maalin xagga lagu wada maalin xagga lagu wada kuwa inaan ka yaabanayna kuwan baba ka daray xagga la soo wada oo maankaaga aadan ka shaqaysiin idan meeshii la rabay nolosha inaad wax ku soo kordhi adaa culays ku noqonayo waatan laha al-imam ar-rafi'i hada laysa waxa kamida idha lam tazid anta fi al-hayati shay'an kunta anta zaid alayha noloshan hadaan wax ku soo kordhin illa hadara meeshii jirta hadaan wax ku soo kordhin ninkan ba microphone ka sameeyay mid kale ka casiraysan sameey kan ba computer ka sameeyay mid kale sameey hadaan wax ku soo kordhin nolosha adaa culays ku noqonayo idan bulshada waxay u baahan tahay nin wax ku soo kordhiya kifaaya يعني ما ناقصها شيء مشكلة كم مقن ملها مشاكل كستا مالكس إسقيمي لكن وحي أبها تانين ما أنت أوهن قضاء أو إرادة أنا قعدت كقباني ومركب بدباديني عمر بن عبد العزيز مركو إسكاد عديه فكر سيدا صوكلاه وحال الشيء وحو أساسي أمام الدولة لم يشتت التاريخ على مر العصور وكرر دهور ولي أنا صامن في التاريخ دولة أي علماء مركا أي حتى سفينة على الأسلاد هاي waxaan ma legend story ba wax la isku aadiyaymiya heer wuxuu gaar cadaalada uu sugay ay leeyin xitaa xayawaanka kala badbaaday inay sardiyaan xitaa waxa kala badbaada dadkii waa kala badbaaday khiyaano illa waa idan waxay leeyin Umar ibn Abdul Aziz suu mawqifka u gaaro habeen iyo maalin buu ku fakiray habeen iyo maalin mashruuca u taagan kaabu ah idan waxa leenahay ninka dhalinyarada ah marka uu ka dhigo higsigiisa war ummadan sidee wax loo taraa ورسيدل لو بدباديا والبابكين لغا سو غلا طريقه مركو سهلين باذن الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن الداخل تاريخنا مركا اندلس لا جوجو اي باسج كاندلس تاريخنا مركا لغا هدليو waxa la sheegaa xadaarada uu didabada u aasay ama libaxnimada didabada u aasay inay tahay mid maanta hooskeeda ay hoos harsanayaan nimankan wastaranka inaga aan cilmiga iyo dhaqaalaha u soo doonanay waxa la sheegaa عبد الرحمن الداخل بفضل الله جل وعلا ثم بجهوده تلك وإسقوا وليمد باوحى إلى سبحانه وتعالى وقدره رمزيا حضارة ذات مركل الجوجا باسج كتاريخي الأندلس مركل الجوجا أو ديب أن ربح أنه برتقيس إسبين ما أنت ما شاء الله مقعبة أو مسلمين تسداد بقولوا السنة أي جعنت أي كوهين وحال الشيء رمزي حضارية ولا مهالمامان بودي ذا بدأوا أسي كيننا إنه نقطة جيد مرد علي أو ما أنت يهوس هرسدان تعليتي شلا لقى عنا مال لما كان ما أنت ماشي الجوجا وإنك ما أنت علمك أن مركا عالة عليهم أن كنها إذا وانين دل يروها مركو فكر كان ولا إيمانه وأنا ماشي أن أباهنها إن أمدا لو فكروا ليراد هدي ولا دد أنت شلا جرمدان يراد ورد مراكز الله سماه أني وضع مكروفا كمان أنو قبصدي وحال جارا وقتي قال لها نيك دل يرى وحبرت ومدرسة فوري لها نيك دل يرى وحبرت وميديا بوس وجلي لها نيك دل يرى وحبرت وليه لها أمدا أن لد جنها بل إن حضارة حنبار سنها أن تسنه وماشي مركز اللي بها بإذن الله سبحانه وتعالى وعيش كان إذا وليه ابن الجوزي هذا القروح بدن بوشيجة معناها مركز تنامي وحليه قفك هدو كري كرو
إنه هدي أي صورة قل أهالي النبي نمضى إن أي تاع وحلا كسبضه obtainable هدي أهالي أو قفك إستجا صاد عسان كرسيد شغل هلا يأكله إنه ولي نمكو قنع معهم بيه هدي صورة قل تهاي بيري إن ملك إلا النقضة أنجل إلا النقضة ملك إلا النقضة وحلا كسبان كر هدي تاع إنه بني آدم نمكو قنع معهم بيه بمعنى وامعي أنت هيك سجاجة ماشى وصل رئيس المرة بتيكسب بإذن الله سبحانه وتعالى سيادة المركب ويصل سكرين وأنا معناها أن كه إنه المسلمون صاد أركي دونتا بإذن الله سبحانه وتعالى إله القرآن كي سوى حكم ذا آيات كوحة كم ذا فليتنافس المتنافسون كلمة النفيس بل أديك سده هنا النفيس كانوا لقد عرفوا وحلقوا مقعابا شيء والبابا أو قالية أو قروح له أو نفسدنا أي جعلاتو جمتو qofkuna iska soo laalaadiyo markuu arko in aynihiisu marka aanay ka qaadi karin kaasoo nafiis lagu magacaaba saadir ba Allah subhanahu wa ta'ala kelmadii meeshu adeegsan laha luqada carabiga falyatasaabiq almutasaabiqun falyatasaari' almutasari'in ba waxa leeyahay falyatanafas almutanafis bimaana shaygan aad u tartamaysi wala tartamaa un maaha adduunya loolta loo galaa un kaliya maaha han noqdo shaygan shay aad iyo aad u sareeyo nafsada marka ay aad u jeceshay ishuna ay qabanayso macnaha marka la helo macnaha aan u baahanna bi idin Allah subhanahu wa ta'ala Umar ibn Khattab baa wuxuu yiri waxaan la tartamay buu yiri Abu Bakr radiyallahu anhu fi kaafat almajalat alhayatiyya mal ana tartan kula gali malahbi kadib waxa ii soo baxday Abu Bakr radiyallahu anhu ardaa kullama an shay kula tartamo inuu iga dheereeyo aakhirka wuxuu yiri markaan arkay inuu khaliifatu almuslimiin u noqdo waxa lagu aaminay dadka diinkoodii adduunyada ay ku aamineen maalinka baan ka harabuur Abu Bakr aan iri khalaas meesha meel gaari kara ma waana meel marka aanan runtii lugaha loo dhigi karin huna Allah subhanahu wa ta'ala fi ghayri ma aya macnaha marka tilmaamay maalin ma kamida Umar ibn Khattab baa wuxuu la kulmay jamc min as-sahaba cadadkoodu aanu yarayn qalbu ku soo xirtay wala fariisto wuxuu rabaa nin walba inuu jaribo inuu marka ومسكحديسو أي شقينيسو عردادو وحايني ويديه تمنوا بيه ساو دنتهين وحون لابتا قش وحون كفكري نبا مركا وحي روحان جعلان لها قولك كان aan fadhino oo dahab si markaan gacanta ugu dhigan wadada Ilaahay ugu bixiyo markaas uu ma yatamanno ninba farta taago wixii waxaan jeclaan lahaa qolkan aan fadhino oo lu'lu'a izabarjada waxa la wixii precious diamond inaan gacanta ku dhigo wadada Ilaahay saan ugu bixiyo wuxuu tamanno markaas uu yiri amiir almu'miniin maanta dhan tamanno baad haysaa intaan heena waan ku sheegnay wuxuu anigu waxaan jeclaan lahaa رج لمدة أبو عبيدة ابن الجراح معاذ بن جبل سالم مولى حذيفة أنت إن هلان جعلان لها بسد حذانين أوكل ومعاد قصة ما إلى عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين وحان أذيك سن لها بيرو كالما يسن لها إعلاء كلمة الله جل وعلا في سبيل الله كلمة إله إلا كريو أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو لها اللي فكر الدنيا ذا قصة ليس مسكحي سمجل كدي بعد توفيق الله جل وعلا dadka uu maciinka uu biday waa afraad oo laga yaabo umri ahaan inaan annaga ka umri dheernahay laga yaabo inaad ka awood badan tahay ka xoog badan tahay laga yaabo majaalaad far badan inaad dheertahay laakiin mishiinka ku rakiban buu og Umar ibn Khattab inay yihiin dad higsigood aad u sareeyo saddexda hadaan helaa buu yiri hadaan heli lahaa oo meel uun kaliya ay ii soo safan lahaayeen intaaba ugu filan wax badan baan qaban lahaa buu yiri waana macna meeshiisa markaa leh walidaalika markii خالد بن وليد وماشي الحيرة وقال وقلي وقبصي وقذومي بوح ودنبال وصوت دري بسم الله الرحمن الرحيم حق قبلها هولك هوسه waxa leeyahay maqalku ma fiicna waxa kale oo leeyahay gabdhuhu aad bay u hadlayaan caruurtuna way qeylinayaan marka walaalayaal caruurta amsiya hadii caruurta idan amsina wax loo maqlayo marka ilmaha amsiya jazaakumullahu khayran saad u maqashaan sheekha codkiisa insha Allah
أمثلة ترى بدن أنو تلماني رنهانتي وحا يوجنين هل هدف إلا موجيو قف كلي إنه حق بنكر لبا الروح إنه حق بنكران سدح إنه حق بنكران وهدي أي كف كران بلشدن إنه كسو كرديان أما أي جعان قبطان إنه صورة قال أيتها وحنا مر إن مركي خالد الوليد وجؤذومي منطقة اللي مقع الحيرة كدبوا دنبال وحو أصو قري أبو بكر رضي الله عنه أو ليه وحنا نباهانا جرمت بانوباهانا وعيدا كأن وتايماها عيدا مركا يقول فلان وعن وباهنا دجال قال أنت كسي فوق أو كسي بحد له إن قاله سادرتد وحن وباهنا سيدا أقول أقصاها بدن إن عيدا جرمة أنهل هذا كان مركا أبو بكر دنبال كمركو فراء أقري بوحو درهل نمبو دري نكا تاريخ ذا وحلقوا مقعب القعقاع ابن عمر التميمي نكا أبو دري كدي بوحو الراعية وحو لا يهزم جيش فيه مثله واللي ما دعين بيه عيدا أو القعقاع ابن عمر وكتر سنة حبين وكيهاي واللي ما دعين بيه إلا الجبيه إذا ما حركة سأرك عيدا دن أو حالات من مركا كوسجن وحكور كاللوها ينا وعيدا كلا وأنا سهلين لقيا إلى خالد الوليد وأنين تكتيك الدجال كان واحد بدل مركا كيقان وقياسي أركب أركي وأدرسي وحبها أصاب بحي إنه جرمة دق أبهاي إذا الحالات ده هدان لقى سوق جالسين عيدا كان لقى عيدا كيس مركا نافك الله دكتو أبو بكر خليفة المسلمين ونين آدي وقدم قنايا كان فكر عيدا كان آياتين كي ماشي قدم بين دونان دولة دي إسلام كهدو خلل سوق جرانيك وجهر اللي ويدين دونان أيوة حودرة هل نبودرة إذا وحن لنا هاي هل نن هدي الله سبحانه وتعالى وسي إلمنتس كأ رجعني مدي وقليه مشينكي إيمانك وكركبه وفي نفس الوقت هيكسي سريين الله سبحانه وتعالى أوصيه بلشدن وكذا شن وقدم قضاء بإذن الله سبحانه وتعالى وقام كرا بإذن الله كلية ما هنا ترى هذا ومضي حق أوصي جيسة حق أنو جيسانة وهذا طريق إذن مثال كلام كان بحيه وحن سوق هذا كرا عمرو بن العاص يسجن عمر الخطاب بيوحي مصر بوفراني وحوا فاتح مصر مركب وفراني بيوحي وحنو بهانا عيدا بانو بهانا عيدا كود البضن مقرنا يسان وحيري سيدا أقول أقصاها بضن وحنو بهانا عيدا دق إذا عمر الخطاب بيوحي وحن كوصو دريبي أفر كن أو عيدا بنكوصو دريبي أفر تكون عيدا والبنا قوتا والبنا صوت دريبي وحا مركا هجامية بيري نن بوحين كرا كون كماشة جوجا اللي أفر كون كيبا وحا هجامية نن كون كأودجما وحير وحن كوصو دريبي الزبير بن عوام المقداد بن عمرو عبادة بن صامت مسلمة بن مخلد نينكا صيئة كما يقول ديغما كون كماشي مركا جوجا إذا waxaa arkaysaa qofka bini aadamka ah marka uu mashiinkan uu ku rakimo iimaaniga raganimadu markay buuxsanto marka uu dareemo dareen gaar ah uu xambaaro bulshadan uu fakaro inuu wax qaban karo idan inqaad al-umma markaan leenahay to save a nation waa wax sahlan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sahli karo waa hadii iimaanka marka la helo ولذلك وحي القرآن الله سبحانه وتعالى وكشيء لبا آيات آياتنا سورة القصص آياتنا وسورة ياسين آيات سورة القصص الله وحي وجاء رجل من أقصى المدينة آيات سورة ياسين وحي وجاء من أقصى المدينة رجل إن لك الهرم مريانة فإذا كجرت الله سبحانه وتعالى وحي تلمامي مركز سورة القصص للجوغي إن نن أردية ومقالة دعا الكيذا وقفوا كسو أرد قادة إنه انتيمد محو أصعدا وحو الربا إنه بدبادي الرسالات كلها رسالات بدبادينية إلا وحو أقيا هدي نبي الله موسى أو توحيدك مركا حنبار سنة إما أنت أصل أي كدك تاني منك جودايزمك إنك استو أي بقلكي وبقل حقا قرب مران أو أصل الله قد وحلا وحي التوحيد وحنبار سنة أو تسمنتك نبي موسى هدي رسالة سهلا الله أمر الله دردر waxaa laga yaabaa risaalada ka dambeeya tawxiidka ku salaysan wana monotheismka ah in marka baaba ay noqoto ninkan uu soo gurmado wuxuu fahmay nabi muuse waxaad ku badbaadin karaa adoo marka u gurmado waa shakhs waahid aayada labaad fi suurati yaasiin allah subhanahu wa ta'ala tilmaamana waa nin socda wuxuu rabaa wax alla wixii dalaal ee baadiye ee jirta iyo isgaramarsiin la garamar la garamar ee manhajka allah subhanahu wa ta'ala inuu ka hortago waa kaligi wuxuu u babacdigayaa ciidan ama dad inta leeg oo baadi isku kaalmaystay isu soo bahaystay oo u soo gurmaday inay baadina taageeraan kaliya meesha imanay
إذن قف كلية وقرمان كرا وقرمان كرا قف كلية قرمد وقلي كرا بإذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسوي كلجي أيام حالي رتك دعوة ضدك أو شيء، لكن واحد هرتاجن بقايا أديان أو لمي شركي وثنية طاغية ماشي قدام بيسجل سيسن ومد دين كإن فربضا مركا كفوجا أصنام فربضا وكوحة من كعبدي ضد فربضا وضد كحتدي ساعة أو دين كأديات وقفك وحل عبد الصنم دربي دقح وحن لو فدينه ومع ذلك كلمة وحل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر هو بك سجيسة كلمة مركا واجهة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم مدعوم والله تاجري وحي با تاجري وحي با الله سعودة هدي الله النبي صلى الله عليه وسلم بوسكيس لما جاري كرو مثال أنه أبو سجن بل أرق رجي هذا personalities كأنت المنا واحد أنا هين واثنين أنا هين وثلاثة أنا هين بل تاريخ المركز دي بيقول لابتي شخص واحد إنه وحق بنكره أي المركز فاهمين حتى في القرآن الكريم واحد أركيس شخصان يحيي لميدا. إذن وعلنا هي هدي تحديد الهدف وقف كمال ودي إن مركز صورة قليتها أرنك كلا وحوي هاي قضب كسدحات يعني وجد بيوحي الإرادة وروح عن ورت دونيس ملابه أنت أنا هيكسي هولك لا أنا كهلن علمي أقول ليسي أنت أنا كهلن هرت أنا وحن إجيهن وحن دياره يعني دونيس ماشي مجرتا ربيس مجرتا قفك وحن مرة بقى ومدونة يا ديار بويه ومعناها مركة مهمة ولذلك ابن عدي وحط الماما يا مركي عدي بن حاتم بأولاد جيدا نبي صلى الله عليه وسلم بوهر فريستي نبي قال يمد كدب بدينك الله بندقي مركي لا هذا كدب ونوع ما لبلبين قلي النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بكويل يقول يا عدي أنا أعلم الذي يمنعك عن ديني وأن أوجه صوت للوجه جيدا يصير ويا عضهاي وامح يقول روح هذا محمد يجروك وكتر سنة وأدد عيرة وقحة يجوا مركا وبصيبة ومال بأنا كنت أجنين هذا ضد كان كنت بفيش لقيا أنا ملعون كاتوران وحكوا ديدن وأنت أبوير مركز سير الله محكلة معها مركز النبي صلى نعم بيرها مركز النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ما قرنا يسابوا إلى الحيرة وما شهد أن تلمامني حيرنا وحى هاي بقرتوين يريروا جوجاي أو يوم مركز بيرشان كمركز رأسنا يرها يقول واحد دعي دون تي عدي وقت جوارنا مسلمة كلي جد انتهي سعداش أما جوارنا انتهي سعداش أو أي تكتئروا كتجيسة إلى بيت الله الحرام إيدو تجيسة إذا كبقني سنة أنا جري دون بلا جاري دون هذا يا عدي مركو النبي صلى الله عليه وسلم مركو هذا كإلها بينده سسيف في عن وكور قلبي روح أي مقتبي إنه رش شيء سيريا وحو كهل النبي نيهين وعير هذا أنا أقول واحد دعي دون ترى وقتي لبعضن قوة ضوضة ما أنت سوبر باور كهوي فرس الرومان كلهم مجعبي القطبية الدولية واجع مثلية waxaa arki doontaa buu iyagoo la jilba aakayad arki doontaa gowsaha iyo lugaha dhulka la isugu dhuftaad arki doontaa iyadoo wax alla wixii kunuuza ee treasure ay hayaan muslimiinta gacanta u soo gal ninka hadlay waa nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga qaxa isaga baxsada dadka uu ka tirsan yahay meeshu ka soo dad fuqara ah laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam arag dreamka uu ku fakaro iyo aspirationkiisa arag iyo waxa uu higsanay arag wuxuu ka hadlay mustaqbal wuxuu dhabo waxay laakiin wuxuu leeyahay Adi ibn Hatim arrinka wuxuu yiri run ahaantii noocan ma aad bay ula fogaa buu leeyahay in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka hadlo arqaam inta la-eg oo weyninka la-eg xaaladda uu ku sugayeen xaalad sidan oo kala waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay xitaa wuxuu ku daray waxa dhici doonto buu yiri maalka in la bixiyo oo nin walba uu yiraahdo waryaal maalkan iga qaadanay hantida uu wasaco cid ka qaadatana la waayo wuxuu yiri waxa dhacday buu yiri xiiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam barigi uu tilmaamay waa la furay waxaan arkay buu yiri gabadha iyadoo kaliya socdaalaysan waan arkay buu wuxuu yiri waxaan hadalka uu suus tilmaamay wuxuu yiri indhahaygan ku arkay buu yiri kunuustii kisra in nabiga sallallahu alayhi wasallam shalay uu ballan qaaday iyadoo horteeda lagu qaybinay waan arkay buu yiri waxaan sugayaa buu yiri takale ah iyadoo maalku sida uu faafo u baahay cid qaadanaysan aan la hitaaban sugayaa idan macnaha waa maxay وإرادة هدي ماشي جرت وصورة قلب إرادة جرت ولذلك إن أحد العلماء وحيري النبي صلى الله عليه وسلم وحت المام الجزيرة العربية Arabian Peninsula ولقيت هو وحي أهان جرت مال أخضر فأجد جرين واه كدي وطن هذا أركيسان ماشي كلية مركز ديزرت لقاها اللي عمل لقاها اللي مال يضو مركز صحراء يضو مثال واه ومال قليل وكجرو جيدا أنا كبحين وحيري إن حديثي مسلم آت المامي الجزيرة العربية سيدي الشلي أخضر وأهيد يعاقى الرئيد بيدبدن بقصر نقوم دون تحديث كي تلمامي ماها معجزة سماذا كسو دقيسي
وتوفيق alla kadibna waxa loo baahan rag marka u hinqado oo imaaradii la yimaado oo camiro oo greenkii marka ka shaqeeyo waa inuu plan jiro planka hadduu san jiro hawsha ma imanayso macna waxaan leenahay shay walba oo isleedahay waxaan way baseen way baaba'een suurtagalna ma in dib loo soo celiyo waa suurtagal haddii Allah subhanahu wa ta'ala loo kaalmayso shaygu marka inuu marka suurtagal u noqonayo biidna Allah subhanahu wa ta'ala arag ciidan inta la eg oo la magac baxay al-ahzab huwan oo isoo bahaysto xagga ka yimid kufri oo dhanna meesha uu jiro uu ka yimid ba waxa la isku dayay nabiga sallallahu alayhi wasallam afarta marka ku daba fayshanoo iimaanka iyo tawxiidka uu rabay inay kor u qaadaan ayaa waxa la yiraahdaa oo dhanba lugta hal mariyo hal gumaada dib dambaba taariikhdu sana loo arkin nabiga sallallahu alayhi wasallam xaaladda marka ay ku timid ma xaalad qofku inuu markiiba isdhiibo oo marka uu yiraahdo waxa doontaan ba idin marinaya maxaa la sameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii la yimaatan uu Salman uu la yimid fakarkii aha trend hal qodo ama khandaqi godkii weynaa la qoday waxa la sheegaa godka isaga cumqigiisa ama dabfigiisa ama moolkiisa hoose marka loo dago 5 mitir buu ahaa waxa la sheegaa ardigiisa marka loo baxana 6 mitir buu ahaa yani waxaan wala jeedaa maaragtay kilomitir buu ahaa ardada waxaan laga qodayana waa sukhur waa dhagax sibsiba oo adag qofkii Madiina taga waad aragtay dhagaxda iyo jibaasha meesha la egtay marka la qodayo yani intaasoo kilomitir markuu yahay marka loo qeybay saxaabada rasuulillah sallallahu alayhi wasallam nin walba intii garweyntiisa loo dhiibay oo la micwalkaaga qaado oo geeskaaga kala dhac marka la yiri nin walba 18 baa ku soo aadaysa oo mitir baa ku soo aadaysa inuu qodo waxay leeyihiin waaga dadka meesha jooga iyagoo marka saxaabada rasuulillah la sifeynayo tabardarra intay ka qabaan iyo gaajo inta ay dilatay iyo sida ay dufta uga muuqato marka la sifeynay dad aad iyo aad u weydoobay oo baaba'ay oo dhanba xitaa qaarkood marada aan cishan karin baahan ومع ذلك لكن مشينك كل ركبان باوحها مشين هذه هذا سري أو شقين إيمانية مركبة وكلها فن بإذن الله سبحانه وتعالى وحي الشيء مركب شركة إنجليز وماشان كتكتي أيها وحي اسكت ضيري مركي سعودي بلان واحد جرا تران هلا سمعه وضدي وماشي سلمان الفارسي خطدي ماكي وماشي ولا تجي أي مركي أي انتي يرى هذا نوفو فيه أن قصة منه بل أنا عرقنا ماشي تران لمرين كره بيوحي هذا أنك هدانا شركة إنجليز qalabka aan haysana qalab meeshan mari kara ma maxaa la birahunu iyo dhulka waxa ku jira iyo dhagxaantan dhagxaan qalabkeeda ilaa hadda aan haydna ma habiira bimaana waa dadka qodayna waxay ahaayeen dad garweyn iyo burus iyo bir iyo imabna ra'iis marka ku jiiday laakiin waxa qodaya maaha Allah subhanahu wa ta'ala marka uu leeyahay inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa ayada Allah subhanahu ana idin la jirabu haddaad idinka salaadiina oogtaan oo zakadii aad bixisaan oo rusushi aan rumaysan macna waa maxay adiga waxa lagaga baahay bidaaya lagaga baahay hawshan iyada iswadata shay walbo islaamiyo ilaahay dartii loola jeedo iyada soconaysa idan waxaan leenahay ummadan waxay u baahan tahay jaanibkii tacliimiga in marka illiteracy-ga laga saaro in wax loo qabto badbaadada maanta ay la adahay amnigan ay raadinayso haddii afar ikhlaas leh meesha ay u soo istaagaan nin kaliya ikhlaas marka xambaarsan hadduu soo istaago baraxtirka ilaahay uu ku arzuqay waa suurtagal wixii marka inay meeshooda marka ka baxaan waxaan marka rabnaa inaan tilmaano ummaduhu inay qoostaan maaha taariikhda marka dib ugu laabatid nimanka Jabaaniiska aad aragtaan dagaal ba'an bay waxay la galeen Chinese-ka waxaad garan kartaan waa la jabiyey kadib bay 1945 haddana Amerikaanku isku taagtaageen waa la jabiyey kadib waa tii waxa la wixii Hiroshima ka dambeeyay waad aragteen iyadoo ummad sidaa ah baaba ah baa waxa la sheegaa waxay kaga soo kabteen ama kaga soo kabsadeen ibtaa ku timid khilaal 13 sano 13 sano gudahood bay kaga soo kabtay waxay sheegaan marka inta hawsha aanay sameyn ka hor rag mufakkiriina aqoon-yahano ah oo u damqanay wadannimo ay ku jirto patriotism-kii wax weyn u ah intay meel intay ku shireen sida wax loo qabtaa kadibna maanta waad arkaysaa caasifada ugu weyn marka ay ku dhacdo waddanka sidaas oo kale ah oo ay burburiso markii way ka soo kabtaan 13 sano oo dib ku soo laabteen idan waa suurtagal waddankan aan leenahay infrastructure-kiisoo dhan waa ka kac aan leenahay marshal plan buu u baahay aan leenahay hadda dib baa loo dhisay la leeyahay haddii laakiin ikhlaas uu jiro muddo gaaban baa lagu soo celin karaa bulshada Soomaaliyeedna in la gurmado in khayrka la isku taakuleeyo waa wax asal u ah dhaqan u ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu ku beeray waxa la mid ah ay sheegaan fi taariikh labadan Kuuriyood markii dagaal uu dhex maray Kuuriyadan iyadu marka waa dagaalkii labaad adduunyada markuu dhex maray tan shuuciyada ah iyadu marka xagga waqooyiga jirta iyo tan iyadu Soomaaliga Bataliiska xagga koonfur marka xigta waad garan kartaan labadaba waxa uu soo kala gurmaday qolana waxa taageertay Ruushka qolana waxa taageertay Xifd Atlas
waxay ahaataba dhulka watan wax alla wixii infrastructure uu leeyahay dhulka watan la dhigay iyagoo zero ka soo bilaabay ba waxa la sheegaa fi taariikh 13 sano kuwii hore 13 sano sheegnay 13 sano ba wax alla wixii dawladdu ay leedahay oo infrastructure dib ugu soo laabtay bay leeyihiin waxa qoraya xaqaa'iqda aad arkaysaan nin mu'arrikh baan hawshiisa ka soo qaatay waxay tilmaamayaan xitaa iyadoo aanan ka fogeyn China markii xisbigii isagu Monsha lagu magacaabi jiray xaakimka ah isagu shuuciga ah in nimankii wadaniyiinta markay isqabteen dagaal baan watan uu dhex maray kadib nimankii wadaniyiinta wixii la eriyay waatay xagga ay Taiwan jasiirad ay ka dhigteen waa tii fasaadka dhex maray corruptionka dhex maray dhulka la mariyay wax alla wixii infrastructure waxa la sheegaa taariikhda wuxuu leeyahay ninkan mu'arrikha ah waxay ku qaadatay muddo 10 sano oo aan saa u badnayn bay dib danba u soo maanta leeyahay wax walba made in China ku arkaysaa ama China sameeyay idan waxaad arkaysaa waa suurtagal ummaddu marka ay dhulka ay aado wuxuu markay burburaan in dib loo soo kabtay meesheedii lagu soo celiyo waa suurtagal laakiin yaa sameeyay hal hiya mu'jiza naazil min as-samaa ma miracle samada ka imanaya Allah subhanahu wa ta'ala tawfiiqdiisa kow thumma waxa xiga iyadoo juhdi la muujiyo oo dadka muujinaya dadka meelaha wax ku bartay ee dadka wadanka jooga wax bartay dadka meel kasta ay joogaan inay qaban karaan waa suurtagal ummaduhu waxa maanta inaga in haystay ummad aanan soo marin marka ma leh wallahi alxamdu wayna ka badbaadeen yurubtan aad arkaysaan dagaalada soo mar wad gartay waxa ku dhintay ilaa 10 milyan baa ku dhintay dagaalka la adduunyada iyo markii dib la korkoladay waxa la sheegaa kaliya ruushka kaliya raashka kaliya 25 milyan baa kaga dhintay waxa la sheegaa jabhada lagu magac Stalingrad kaligeed waxa dhintay 20 milyan baa dhintay inta la dhaawac lama qiyaasi karo laakiin maanta waad arkaysaan Yurub oo ka kooban 25 dawladood waa mid kaliya waxa laga fikirayaa hal currency inuu ka dhaxeeyo waxa laga fikirayaa hal tareen inuu isu dhaxmar waad aragteen waxaad arkaysaa 25 dawladood oo suuq caalami ah leh oo la isaga dhex goosho in la helo waxaad arkaysaa 350 milyan qof oo hal dastuur kaliya leh baa lagu fikirayaa wadada ku soo jira idan ummad walbaba waxay soo martay xaaladda inaga aan marno leena marka la soo ururiyo 2 decades way 20 sano waxa marka la soo ururiyo 20 sano in bulsho Soomaaliyeed oo asal u leh nakhwada asal u leh oo geesinimada asal u leh oo deeqsinimada asal u leh oo asal u leh in istaakuleen isgacan qabtaan waxba lama aha laakiin hadii qurunka inaga nagu jiro fully extracted la iska saaro xagga la dhiga marka ummaddu wax qaban kartaa biidillah subhanahu wa ta'ala si marka mashaariicda hadda aanu tilmaamayno dhan iyadu marka ku salaysan cilmiga oo qaybtii koowaad muhaadarada ah ee ku salaysan higsiga sare oo qaybtii qodobkii labaad ah ee ku salaysan iraadada ah ee ku salaysan change-ga si loo gutaay runtii waxa jira cawaaqib fara badan ee qofka hor istaagi kara runtii kana xanibi kara inuu hadafkii uu lahaa ee uu hinqanay inuu gaaro waxyaabo badan hor taagan baa jira waxyaabo hor taagan waxa kamid ah cadawgu sidaas kugu deyn ma run ahaantii waxa laga yaabaa in barnaamij lagu sameeyo barnaamij ku mashquulisa ku hawlisa laakiin waxaan leenahay saxaabatu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam arkaysaan dadkii intay dhaqaaqeen bilaad furus warum furtay dadkii intay dhaqaaqeen xagga ay bariga sind gaaray dadkii intay dhaqaaqeen xagga ay waqooyiga khirz iyo armenia iyo bilaad ruus gaaray dadkii intay dhaqaaqeen bilaad sham iyo masar iyo barga iyo Trablus iyo Afriqiya inteeda dhan dadkii intay dhaqaaqeen inta dhan 35 sano gudahood bay ahayd islaamka bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur inuu gaaray 35 sano gudaheed ragga xambaaray ee garabka ku sida waxaan dad-doodu yartay nabiga 40 jir aha Abu Bakar baa 37 jir aha عمر الخطاب baa 27 jir aha Uthman bin Affan baa ka sii yara 10 mubashirin bil janna bada'dooda tiri dad waxay da'yara laakiin waxay dareensanaayeen islaamka kan marka uu faafi Allah subhanahu wa ta'ala uu kari marka la yiri muslimiinta xaqeen oo ha ka hijroodeen Makka al-Mukarrama Madiina al-Munawwara ha aadeen diyaaradahan maanta jiro way akhluqu ma la ta'lamu intu ilaahay u soo dejiyo helicopter uu kan in la daad guray xaq waa la geyn kari laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu raa mu'jizadan iyada ah ama hawshan la qabanay inay bashari noqoto gacantooda lagu qabto inay iyagu sameeyaan marka naam waa wax aad u qurux badan waana silax aad u qurux badan Allahumma hadina Allahumma ijma' shamlana Allahumma waxa soo dhan noo sameey wax qurux badan way waana loo baahay qofka muumin inuu ka tagin thumma waxa wehliya dhaqaaq baa wehliya oo bimaana ma aragtay nusuustay kala soo dhax bixin aayad tilmaanta ma lahane in Soomaalidu yiraahdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri dadaal anoo kula jira nusuustay kala soo dhax bixin laakiin ay saasoo kale ma jirto Allah Ilaahay wuxuu yiri oo kale bimaana macnaha soo kale waxa leenahay qof markuu dadaalka uu galo hawsha waa la qaban karaa biidin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtiga قدامات طيب ماشي بيسجل ان شاء الله
بارك الله فيك